Macallimad ayaa ardaydeeda ku dhahday waa idin jeclahay dhammaantiin ilaa adiga mooyee, sababtuna waa mid murugo leh. Ku soo dhawaada saaxiibayaal. Maalin macallimadda galaaska shanaad ayaa ardaydeeda waxay ku tiri dhammaantiin waa idin jeclahay. Waxay ka soo reebtay arday lagu magacaabi jiray Teddy. Dharkiisu markasta waa mid aad u wasakh badan, heerka waxbarashadiisana waa mid aad u liidata. Waxyaabahani waxaa lagu arkay sanadihii ugu dambeeyay. Sidoo kale lama ciyaaro carruurta, markasta dharkiisu waa wasakh, wuxuu u baahan yahay nadaafad, waana mid aad u niyad jabsan. Maalin waxay dalbatay in ay dib u eegis ku samayso ardaydan fasalladii ay soo dhaafeen waxyaabihii laga qoray. Markay dib u eegis ku sameynaysay waxyaabaha laga qoray Teddy, way la yaabtay waxa ku qoran. Wuxuu ka qoray macalinka fasalka koowaad: Teddy waa cunug wanaagsan oo caqli badan, kaa oo u guta wixii loo diro si hagaagsan. Macalinka fasalka labaad: Teddy waa arday wanaagsan, kaa oo ay jecel yihiin asxaabtiisa, laakiin wuxuu la murugaysan yahay cudurka ku dhacay hooyadii ee kansarka. Halka macalinka fasalka saddexaad uu qoray: dhimashada hooyadii waxay ku noqotay arrin culus, sidoo kale waxay bedeshay dadaalkiisa, arrintaasina waxay saameysay noloshiisa. Marka uu qoray macalinka fasalka afaraad: Teddy waa arday aynan xiisaba ku haynin casharka, wax saaxiib ahna ma lahan, mararka qaarna wuu ka hurdaa casharada. Halkan ayay ka xaqiiqsatay macallimadda mushkiladda. Waxay dareentay ceeb, xaalka ayaa ku xumaaday. Maalinta dhalashadeeda, ardayda dhan waxay u keeneen hadiyado aad u qurux badan. Marka laga reebo Teddy, wuxuu u keenay hadiyad lagu soo riday bac wadada laga soo qaaday. Macallimaddii waxay furtay hadiyadii Teddy. Ardaydii ayaa ku qosleen hadiyadiisa. Waxay ahayd jijin laga sameeyay dhagaxaan la isku kakabay iyo haaf barafuun ah. Ardaydii way joojiyeen qosolka markay arkeen macallimadda in ay ku faraxday hadiyadii. Si wanaagsan ayay ugu mahad celisay, waxayna dharkeeda marsatay barafuunkii. Maalintaasi marka cunuga xiisadaha u dhammaadeen, gurigiisa si toos ah uma aadin, balse wuxuu sugay macallimadda si uu ula kulmo. Wuxuuna ku yiri: uduga ka soo baxaya maanta waa udugii hooyaday oo kale. Macallimaddii ooyin ayay la dhacday, sababtoo ah Teddy wuxuu u keenay dhaladii barafuunka ahayd ee lahaan jirtay hooyadii. Sidaas aawadeed macallimadiisu wuxuu ka arkay udugii hooyadii oo kale. Maalintaasi kadib waxay siisay ihtimaam qaas ah. Waxaa dib ugu soo laabtay farxaddiisii. Sanadku markuu dhammaaday, Teddy wuxuu ka mid noqday ardayda ugu wanaagsan fasalka. Kadib iyadoo isaga fikiraysa albaabkeeda, ardaygii ahaa Teddy ayaa u soo qoray: waxaa tahay macallimaddii ugu wanaagsaneed aan nolosheeda la kulmo. Waxay ugu jawaabtay: sida macallimad wanaagsan loo noqdo adiga ayaa baray. 13 sano kadib, macallimaddani waxay la yaabtay in looga yeero kulliyadda caafimaadka xalfad qalinjabin ah inay ka soo qayb gasho, waxaana ku qornaa wiilkaaga Teddy. Way tagtay iyadoona xiratay katiinkii, soona marsatay barafuunkii. Ma garanaysaa oo kuma Teddy hadda? Teddy Stoddard waa dhakhtarka ugu caansan dunida, waana milkiilaha xarunta Stoddard ee lagu daaweeyo kansarka. Waxaan aragnaa carruur badan oo burburtay waxbarashadooda sababo la xiriiro dhaqan xumadooda. Sidoo kale carruur badan ayaa u baahan garab istaag si ay u gaaraan ujeedada noloshooda, taasoo ah dhakhtar, injineer ama mucallim. Wallahi carruur badan waxay u baahan yihiin garab istaag.